markii ugu horeysay ayaa maamulka gobolka kan degmada iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Awdal waxa ay ka warrameen inta uu leeyahay khasaari ka dhashay kaalintii shidaale dabku ku qabsaday maalintii shalay ahayd gudaha magaalada Boorama ugu horeyntii ayaa taliyaha qaybta booliska gobolka Awdal mudane Cabdi Barkad ka warramay ilaa imiga khasaaraha ay tira koobeen khasaaraha dadka intaan aragnay ilaa 7 qof oo shicib ayaa dhaawac yar ka soo gaareen xagga ciidankana 3 askari iyo aniga ayay dhaawac inaga soo gaareen waanu yeedhay dadkii lahaa kaanta intii aan ka aragnay oo yeedhnay in ciidanayaan oo dabkaas si amdin lagu dhacay in korontada dabku ka dhashay oo noo cadeey kari waayeen oo warfaan weyn naga siin kari waayeen waxaan si u malaynayaa in dadka sigaarka cabay waxaas meesha joogaan kaalintan shidaal oo gubatay ayaa waxa ay ku taalay bartamaha magaalada Boorama maayirka magaalada Boorama Cabdiraxmaan Shidabile ayaana waxa uu ka warramay waxa uu qorsheysan ay ka yeeli doonaan kaalmaha shidaal ee ku yaala gudaha magaalada Boorama wallahi anagu day waxaan ku shaqeynaa xal kuma shaqeyn anagoo ka hadlayna duruufta dadka eegayna anagoo eegayna wacyiga lagu jiro waxaan ku shaqeynaa anagu xal baan ku shaqeynaa haddii xul lagu shaqeeyo wax waliba ma noqonayaan sidan hadda yihiin waxa kale oo xusid mudan in dhacdadii shalay ay daba socotay dhacdooyin kale oo dhinaca nabadgelyada ah waxaana mas'uuliyiintaasi oo ka kala hadlaya arrimahaasi ay iyagu mar kale yiraahdeen annagu mar walba maslaxad baan joognaa hadalkaygu waxa weeye mar walba maslaxad baan joognaa maslaxadda hal joogno iyo nidaamka iyo kala dambeyn buu in meherada la shiido in la buuqo meesha loo yimaado in cid khatale ku dhacday loo gargaaro oo la baqtiyaa loo yimaado ciddii wax kala ka abuurtay soo ma noqonayso in talaabadeedii laga hortago soo noqonayso ما يبغى نبح دوينه عادي يسويه وهاي نوير وكون دبجك توقتها هاي وأنا كنت أقول كذا وصوب كمان نكواسي ميلا بدن ومهردا بدن يجوا مقادي لفتي له شغل بدن بكسبيين ولا نقول مقيّه ولا بدن يا كواس شغلنا وفكرنا إن شاء الله مل فوق بايد الياساسي كوا هولان ربشدو مل فوق بلقدون دونا حقيقة وين تاس مر لبعض يمر سدحات يمر أفراد بقى ودي والدين تقبل كعوض هنا يدليرتو ذا أي مسؤوليته خاطر sidoo kale dabdamis la'aanta magaalada Boorama waxaana maayirka magaalada Boorama taliyaha qaybta booliska iyo barasaabka gobolka Awdal ka jawaabeen siyaabo kala duwan aan wax iska weydiino aynu dhaqaale urursano haddii ilaahay yiraahdo ku talagalkeena aan ku talagalno runtii bisheeda inaan gobolka ay noo joogaan 2 dabdamis kulli sida wajale gabilay iyo meelo kale oo magaalooyinka kale Soomaaliland dadka ganacsatada ayaa inta badan waxaan iibsada ganacsiga lafteedu ay mas'uuliyadda wax ku leeyahay baan arkayaa ma habeeniyo maalinba dawladda dhexe wax baan weydiinaynaa laakiin baahiyo sidoo kale horeeyaan baan weydiinaynaa Abdalla Ali Yusuf shabakada wararka Lugay News magaalada Boorama